soo dhawaada saaxiibayaal tobanka dal ee ugu qaniisan qaaradda Afrika ayaynu maanta ka hadlaynaa. Qaaradda Afrika ayaa lagu tilmaamaa inay tahay tan ugu faqiirsan dunida, ayada oo faqiirnimada qaaradda loo sababeeyay dhaqaalaha aan xasiloonayn, amni la'aan, musuqmaasuq, dagaallo sukeeye iyo falalka qaaradda Afrika ka dhaca ee lidiga ku ah amniga. Haddaba hay'adda lacagta adduunka ee IMF loo soo gaabiyo iyo bangiga adduunka warbixin ay si wadajir ah u soo saareen dabayaaqadii sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2021 ayaan saaxiibayaal idiin soo gudbin doonaa waxa ay ku shaaciyeen tobanka dal ee qaaraddan Afrika ugu qaniisan. Waddanka tobanaad waa Angola. Dalka Angola oo ku yaalo bartamaha Afrika ayaa kaalinta tobanaad kaga jira tobanka dal ee ugu qaniisan qaaradda Afrika. Dhaqaalaha dalkaasina waxaa lagu sheegaa in uu gaarayo sanadkii 66 bilyan oo dollar sanadkii weeyaan. Waddanka sagaalaad waa Ivory Coast. Ivory Coast oo ku yaalo bariga Afrika ayaa kaalinta sagaalaad kaga jira qaaradda Afrika wadamada ugu qaniisan. Dhaqaalaha dalkaasina waxaa la sheegay inuu gaarayo 70 bilyan oo dollar. Waddanka sideedaad waa dalka Ghana oo ku yaalo galbeedka Afrika oo kaalinta saddexaad kaga jira tobanka dal ee ugu qaniisan qaaradda Afrika. Waxaa la sheegay in dhaqaalihiisa sanadkii uu gaarayo 74 bilyan oo dollar. Waddanka toddobaad waa Ethiopia. Dalka Ethiopia waxa uu ku yaalaa bariga Afrika, kaalinta toddobaad ayuuna kaga jiraa wadamada ugu qaniisan wadamada qaaradda Afrika. Dhaqaalaha dalka Ethiopia ayaana sanadkii waxa uu gaarayaa 93 bilyan oo dollar. Kenya, waddanka lixaad weeyaan. Dalka Kenya oo ku yaalo bariga Afrika waa kaalinta lixaad kaga jira tobanka dal ee ugu qaniisan qaaradda Afrika. Sanadkii dhaqaalihiisu waxa uu gaarayaa 106 bilyan oo dollar. Dalka Kenya oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 54 bilyan. Dhaqaalihiisa wuxuu ku tiirsan yahay beeraha, dalxiiska, ganacsiga, furfuran iyo sidoo kale dhoofinta waxyaabaha la xiriira muqaadaraadka. 5. Waddanka Morocco. Dalka Morocco oo ku yaalo waqooyiga Afrika kaalinta shanaad ayuu kaga jiraa tobanka dal ee ugu qaniisan wadamada qaaradda Afrika. GDP-giisuna waxa uu gaarayaa sanadkii 124 bilyan oo dollar. Waxaa ku nool dalkaasi dad gaaraya 37 bilyan. Dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsan yahay beeraha, macdanta iyo dalxiiska. Waddanka afaraad ee Algeria. Algeria oo ah waddanka afaraad ee ugu qaniisan qaaradda Afrika. Kobaca dhaqaalaha dalkaasi ama GDP-ga sanadkii waxa uu gaarayaa 151 bilyan oo dollar. Dalka South Africa ayaa kaalinta saddexaad ku jira. Waxa aana lagu sheegaa dalka South Africa in wadamada ugu qaniisan qaaradda Afrika kaalinta saddexaad uu kaga jiro. Kobaca dhaqaalaha dalkaasi ayaana sanadkii gaaraya 329.53 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Waddanka labaad ee Afrika qaaraddan lagu magacaabo kaga jira wadamada ugu dhaqaalaha badan kaalinta labaad ayaa ah waddanka Masar. Waxa uu noqday waddanka labaad. GDP-giisa sanadkiina waxa uu gaarayaa markaas waa 394 bilyan. Waddanka koobaad kumuu noqon karaa daawada ayaad qiyaasaysaa waa Nigeria. Dalka Nigeria kaalinta koobaad ayuu ka galay wadamada ugu qaniisan qaaradda Afrika. Kobaca dhaqaalaha dalkaas waa 514 bilyan oo dollar. Dalka Nigeria waxaa ku nool dad gaaraya 206 milyan oo qof oo dadkaasi ka dhigaysa dadka ugu badan qaaradda Afrika. Dhaqaalaha dalka Nigeria wuxuu ku tiirsan yahay saliidda iyo sidoo kale beeraha. Warbixinta waxaa lagu sheegay qaaradda Afrika oo leh kheyraad aad u badan oo dabiici ah, haddana wadamada qaaraddu in ay kheyraadkaasi ka faa'iideystaan ay ka hortaagan yihiin dagaalada, musuqmaasuqa iyo xasilooni darrada siyaasadeed oo ay horseedeen arrimahaasi oo isbiirsatay. Warbixintayni maantana saaxiibayaal waa naga intaa. Fadlan muuqaalkan share gareeya lana wadaaga bulshada Soomaaliyeed. Mahadsanidin. Soo dhawaada saaxiibayaal.